kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay in shaqada tababaranimo ee kooxdaasi ka joojisay isla markaasna ay shaqada ka caawisay Xavi Hernandez. Tababarahan ayaa waxa uu kooxda Barcelona intuu joogay u gaaray 141 kulan, 89 goolood, 23 barbaro galay, 29 waa laga badiyay. sidoo kale intii uu joogay waxa uu qaaday hal league oo ka Spain ah iyo one super cup uu qaaday kooxda Barcelona intuu joogay. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii ay warbaahinta Barcelona iyo ciyaaruhu si rasmi ah u soo gudbiyeen in Xavi Hernandez uu joogi doono kooxda Barcelona isla markaasina uu heshiis cusub oo kordhina uu kula joogi doono kooxda Barcelona. isaga laftiisuna waxa uu sheegay inuu xoog ugu faraxsan yahay inuu kooxda noloshiisa qaybta weyn ka soo qaadatay uu sii joogo isla markaasina uu tababaro noqdo. isaga iyo madaxda kooxduna sidaasay ku heshiiyeen 2 toddobaad ka hor. laakiin maanta waxa la leeyahay kulamo ilaa xalay u socday isaga iyo madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta waxaa la isla gartay inuu iska tago isla markaasina uu shaqada tababarnimo ee kooxdaasi sidaa ku macasalaameeyo. ilaa imika lama garanayo maadaama 2 toddobaad ka hor kaliya lagu heshiiyay inuu kooxda sii joogo sababta keentay imika iyo suurtagalnimada ka dhigtay inuu kooxda ka tago. laakiin wararka hoose aan helin ayaa waxay sheegayaan in waxyaalo magaranaysaa kooxda maamulkeeda ciyaaryahanada la soo iibsanayo waxyaalo noocaas lagu heshiiyo la isku afkaran waayay. marka tababaraha kooxda Barcelona saas ay shaqada kaga tagay iyaguna imika waxa ay bilaabeen inay tababaro cusub oo imika kooxda shaqada la sii bilaabo inta ciyaaraha saaxiibtinimada iyo horyaalada aanay furmin la sii qabsada ay doonaan. tababaraha xoog loo xidhanayo waxa uu tababarihii hore kooxda Bayern Munich Nicolas Hans Felix ayaa la saadaalinaya inuu bedel noqdo tababarahan kooxda Barcelona ay shaqada ka yiriday. laakiin lafteedu way jiraan tababarayaal kale oo ay baarayaan oo weli magaranaysa aanin la saadaalin. laakiin ilaa imika tababaraha ugu dhow ee imika la xidhanaya waa ninkaas Arian Tchouameni dhexda kooxda Real Madrid uga ciyaara isla markaasna ciyaarihii u dambeeyay difaaca dambe uga ciyaarayay ayaa seegay oo laga saaray inuu ciyaari doono finalka Champions League. ninkan horta nin aad u fiican weeye marka maarta dhexdii waliba difaaca dambe ayaamihii dambe aad ugu fiicnaa. laakiin dhaawacaasi ku siigaya ciyaarta kama dambaysta ee lagu kala qaadayo horyaalka Champions League ee qaaradda Yurub kaas ay finalka isku haleeli doonaan kooxaha Real Madrid iyo Borussia Dortmund. waxaa la saadaalinayaa inuu laakiin ka qayb gali doono koobka Euro League ee 2024 sanadkan gudihiisa dhici doona oo aanu sheegi doonin kulamada uu ciyaari doono ayaa la saadaalinayaa. ciyaaryahan Bruno Fernandes waa kabtanka kooxda Manchester United ayaa wararka qaar sheegaya inuu kooxda xilli ciyaareedkan ka tagi doono isla markaasna uu macasalaameyn doono. qaybaha ciyaaraha adigoo qaar ba qoriyo magaranaysaa inuu kooxda ka tagayo halka wararkan ay sheegayaan warkaas in magaranaysaa aan weli soo shaac bixino. laakiin adigu la xiriirinayo inuu xilli ciyaareedkan ka tago kooxda Manchester United oo xilli adag xilli ciyaareedkan ku jirtay isla markaasna ku bedel looga bartay aan soo bandhigin. isagu uu hadlay wuxuu Wembley baan ku soo soconaa dhammaan taageerayaasha waxaan u sheegaynaa inay iska garab istaagaan kulanka finalka ee FA Cup-ka ee Wembley ka dhici doona ayaynu isku arki doonaa halkaasaynu wax fiican ka sameyn doonaa ayuu leeyahay koobkaas oo macnaha oo kooxda Manchester United iyo taageerayaasheeda buu sheegaya inay imika muhiimadda saarayaan isla markaasina doonayaan inay ku guuleystaan oo Manchester City ay ka qaadaan. talafteeduna waa adagtay laakiin bal waa arki doonaa hadda sida ay taageerayaashaasi ay sameeyaan iyo koobkaasna halka uu la maro. ciyaaryahan Olivier Giroud weeraryahanka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay inuu ka fadhiisan doono kubadda caalamiga ah. waxa uu sheegay in haddii Euro 2024 sanadkan gudihiisa la ciyaaro uu fursadda iyo waqtiga siin doono ciyaaryahanada da'yarta ah ee xulka qaranka Faransiiska
si ay uga faa'iideeyaan fursadaas isla markaasina isagu waqtigiisa soo qaatay iminkana loo baahan yahay da'yarta inuu u baneeyo oo uu fursad siiyo. Ninkaasina waxa uu sheegay inuu ciyaaraha ka fadhiisan doono Euro 24 kadib. Markaa Giroud dee waa weeraryahan weyn kooxo badan soo ciyaaray goolal badan dhaliyay runtii. Xulka Faransiiskana wuxuu ku jiraa ciyaaryahanada ugu goolasha badan haddaan ahaynba ka koobaad. Markaa dee ninkaasi waxa uu sheegay inuu isna kubadda ka fadhiisan doono.